وايد سلامي وانت صاحب سياسيين مدحنا السيفل سوسايتي ama ururada bulshada meesha joogtay baada saxaafadda dhammaan ka soo qayb galayaasha waxaan ku salaamaynaa islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam farxsanahay faa'iido iyo abbaas iyo dadii kamid yihiin joogaan activista ah waxaan rabnaa anaga xaqaa naga maqan xaqeena horta in la doono caawana la faquuqa min goonihana la fariisiin wala soocay وعرفنا سيدي إن كل دير نقول سمين لها إن لقى شقي الله أنا تاسكفت معي أنت اسمك أنت اسمك تقول أنت عنو هذا علنا Somali education وعاون مع الزملاء الشام فرصة النوسي أنت قاري وجيدا قاعد تقول لك بلان الله كلامه ذاتك هذا هو تيلا فديين ولابنتي بالشدة لابنتي وإليت كده لربو ذاتك كان جميعا سادرتي هذا الكعاو من خندون إلى الناس يدين محاضرين أنا أقول لك شكرا لك بس أنا بنام دونا وقادين وبنام دونا العلم أنا هذا الكي جاء لو قال من شكرا دونا إلى إيران أنت لكن لو قال عباس دلتي جدا ونوفر لا لماذا عباس من نوفر عاون كان ويران عاون بس عندي كل سنة لكن ما دام هذا النمط ما يسوى أبابه أيسن أسمين إجوكي مركز هذا youth أيسن أسمين definition وعسى أنه طبعا عاوة أوفر أنت أصور وعن قصة سرعة مركز اللي يرى عكس قلبي قال لي أنا كذا بدأ هذا ضرر بدارها هذا كيلو كذا لكن هذا قلبي اللي يرى كذي عرضنا قواس مركز إنه سيقولي أيه كنا ليس كانوا وفروا ولا ويران من يراد بسلامتي وحله ما قال لي أنا ولا هذه أنت سكدي ولا رياض أنت من يراد بالشو والبعمش اللي قد قيم بين حوالي دي بالشو عرفت إلى أوقاته بل يراد فيها بل يراد يجي كوفي عن بالشو سوفي عنده دي بل يراد أي حمالان بالشو سوفي حمالان هاي بل يراد مستقبل كريه معانا عباس عاداتي وري شرماركي مدحدي مانتا واي iyo madaxda bari laakiin odayaasha iyo hooyooyinki intii ay soo sameyn kareen waa soo sameeyeen ana waxaan aaminsanahay aabayaashii iyo hooyayaashii inay ahaayeen dadka ugu fiican sababtoo ah intii ay awoodeen ayagoo duruufta aad ogtahay haysato meel aan lahayn oo xabada ay ka dhacayaan oo aan caafimaad fiican lahayn ay wax isku dayeen inay dhibaatada aragtay riskiga intay soo qaataan ay yiraahdaan ilmaheena meel ay ku badbaadi karaan hal geey horta waxaan rabnaa inaan u mahadcelino aad iyo aad u mahadsantihiin intii aad samayn karteen waa soo samayseen maanta marka adinka idin joogtaan adinka marka waxaad haysatiin fursad ka fiican fursaddii ay haystaan dadka idin la midka ah dhalinyarada kamidka ah markay rabaan inay wax bartaan waxay ku khasban yihiin in aabayaashooda ay lacag weydiiyaan ama ay shaqeeyaan لكن أنا ما أنت معانا يسمى برشة وعقلها قاركين ظروف تصوى صومري أنا صومري وعنكو خصبنا ودن كي جتا كتب السودان من الكلام إلى حد كذا بيها سجان على ولي بالعكس كذا ربي حنا أنت سكري معانا غيرك ولي إنك صوب بيلان وحاول أنت العقل مو صوب لا على بريها كم الرجال الرئيس ولا مسلحي قارب بدر ماشي نفدينا مالك اللي صوبتين dadkaas waxay ku khasbanayeen inay lacagta jaamacadda u shiigan iska bixiyaan intaas maahana la biiro adinka maanta maxay haysatiin jaamacad lacag la-aan oo jaamacadaha adduunka ugu qaalisan labo waxay haysatiin intaas maahana beesaa lagu siinaa lacag haddaad deen qaado haddii aad diinta ka cararayso mid kaloo waxaa jirto deeq ah oo lagu siinaayo haddii kale waxaa u baahan tahay waa shaqaysan kartaa إقامة السودان اللي يقول سينا عاكمة مركي عن جامعة التجي مش غين كرتين ممنوع عليك شغل ورد السودان شغل ما تجي تاوي لكن ساس تأتى عن لو أقولين إقامة داس وما شق مش غين كرتين حاله حاله موسي أرضينهم أنت نتاج شقيس تبين شو شقيس تعدار هذا خبران كرتا أرنت أسمع مرتفوسة هذه ستين معي هذا الكي وحنا نقصو كوبا وحوال هو بالميراد إنه يجين مستقبلكم مدة
madaxdii maanta inay yihiin cidda la rabo ummaddan inay hogaamiso inay yihiin. inaad hogaamiso marka waxaad u baahan tahay positionka inaad gaarto skills wax lagu hogaamin lahaa inaad gaarto. skillkaas kow waxaa ka ah waxaan aada ugu hooyay nimankan magacooda Somali Youth for Education. maxaa yeelay waxaan isku qabanaya aniga youthka oo dhalinyarada ah iyo education oo ah waxbarashada. qof aan aqoon lahayn wax ma hogaamin karo. maxaa yeelay ummadda hogaamiyaha waxaa la yidhaahdaa waa visionary. visionary waxaa waa qof viqoon leh, aragti dheer leh, buurta gadaasheeda waxa yaalla arki kara. macnaheeda waxaa waa inuu toomir haysto. haddii laakiin ummadda waxa ay ujeedaan keliya aada ujeedo ummadda ma hogaamin kartid, because wax ayaga ka baxsan oo aad u sheegi karto malaha. skillka kale ee la rabo ummadda in lagu hogaamiyo waxaa waaye teemada caawiga ku jirto ah in la is organize gareeyo, in la is abaabulo. maxaa yeelay keligaa waxaa ma bedeli kartid, qof keligiisa ma bedeli. si walba oo aad caqli badan tahay, si walba oo aad u tahay maxaa la yidhahdaa qof genius ah, maaragtay adduunka qof keligiisa wax badbaadiyo. gadaal u laabo revolution kastoo dhaco, revolution kastoo dhaco wuxuu ahaa revolution abaabulan oo ahaa. waxaan ka xunahay annaga bulsho waxaan ka nimid maadiga bulshadeena ururnimada waxaa la yidhaahdo aadaa loo kufsaday, aadaa loogu cayaaray. waxaan ka xunahay terminolojiyada qaar markay dadka kaa maqlaan aadaa loo abuse gareeyay. marka waxaan u baahannahay inaan dib ugu soo celino sharafta ay lahaayeen. waxaa kamid a urur, waxaa kamid a NGO, non governmental maxaa la yidhahdaa organizations. adduunka waxaa lagu dhisay oo horumar kasta keenay ayaga ahayd. waxaa kamid a mashruuc haddii lagu yihahdo hebel NGO-yista waa ka waran caabiyaa base amaa wahay mashruuca soo qaadata haddii lagu yihahdo macno kale leedahay. adduunka waxaa lagu dhisay waa mashruuc, waxaa dhisay waa NGO. annaga laakiin ku yaaqada markaan faanayna maxaan dhahnaa qofka Soomaaliga markuu rabo inuu sukaa amaano wuxuu ku leeyahay ani horta weligay urur ma gelin, weligay urur ma gelin, mana ka tirsaniyo ogaada. wuxuu rabaa inuu isbari yaalo. I'm sorry haddaan urur ka tirsanayn si rabaa dadka inaad u bedeshid. waxaa barbar socdo kelimad kaloo la yidhahdo anarchist ama fawdo. tibbi kale annaga kaa rabna kaas waaye. maxaa yeele haddii abaabul iyo isku xir la waayo macnaheedu waxaa waaye hal loo kala ordo waayo. horta waxaan u baahan nahay inaan is organize gareyno. labo inaan wax barano. markaan wax barano aan ummadda hogaamin karnaa. markaasaan waxaan noqon karnaa syndic. dexda waa inaan ku darno bulsho. waxaan ku nimid aadaan ugu faraxsan nahay inaan Swedish nahay, inaan Soomaali nahay, stolti aan ku nahay. laakiin haddana waa inaan garnaan ognahay inaan minority nahay. kama xishoonayno maxaa yeele culture gooniyahan leenahay. minority markaa tahay marka problemiska minority-ga oo dhanaan ku imaanayo. cidda ugu fiican oo arrintaas looga daysado oo for build noqon karta waxaa waa nimankan Jewishka la yidhahdo. xataa kelimadan diaspora la leeyahay meesha ay ka timid ayaga waay. yahuudda maxay sameeyeen? Yurub ay yimaadeen, dhulalka la carbeed ay yimaadeen oo ay minority ku yihiin oo la yaso lagu xadgudbo. laakiin si bulshada ay uga soo dhalaalaan maxay sameeyeen? waxay xooga saareen in bulshadan ay ku qasbaan inay u baahato waxbarasho iyo ganacsi. annaga waa leenahay egliscopska waa leenahay. characterka Soomaalida markii la daraaseeyo ganacsiga aada ugu fiican ah. waxbarashadana ma iska xulin. laakiin waxaan u baahannahay inaan xooga saarno. magaalada markaan degannahay waxaan nasiib kale aan usii yeelnay jaamacadda magaalada daris la nahay oo laga yaabo qofka OSLB degan ama qofka Kabaanish Fayden degan wuxuu usoo lugay baabuur soo raaca inuu baabuur soo qaato. laakiin qofka shalay anga ama York Gordon degan ama Buulamir hataa degan jaamacadda lagu ku imaan karaa. ayadoo isaas tahay laakiin hadda percentage-kan jaamacadda ku dhigana waxaan weydiinaynaa ragga jaamacadda dhigto waqtiyada fadhiya inta ay leeyihiin ama ragga ka soo baxay. meesha marka aan tagno ummadda kale oo dhan waa lagu arkaa laakiin annaga
nabadguma arko waxaan u baahanaa marka dhalinyarada inaan xooga saarno waxbarashada iyo is-abaabulka labadaas haddii aan sameyno aniga waa rabaa dadkeena bulshadeena inaan wax ka bedeli karno dhinaca kalena aan noqono bulsho aad loo ixtiraamo aad iyo aad aan uga xumahay in waxayga waano iyo isu bedelaan caawir ahaan la sheekaysto qoslo dhalinyareeyo cabaasna taakada naga qaado aad iyo aad